socodkaygu anagu de socodkaygu sidaaba intaa waxbarashada wacyigelinta abaabulka iskoolada hadda wixii aan ka laqa qaban karno muhiimiyad anaku waxaan u soconnaa oo waxa marka muhiimadaasna inaan de haddaad tihiin dadkii deegaanka odayaasheeda dhalinyartii halka intaan isku xidhnayna wada lahayn in wax wada lahayn waxaan doonaynaa da inaan iskaashano oo layna iscanaanano hadda wax naga gafaan anaka wax naga gaabtaan adnoo dabirtaanoo iswa celgelino innakana hadda wakhlada naga aragna da inaan wanuguno inakuna aan maaratay aan bahasha isla eegno dad imanka dhismayo guuranayaan nahay waan iska kaalinta geli doonaa insha alle aan kaalinteena buuxsano anagu socdaalkan u soconay waa sida oo waxbarashada waa abaabulka kale ee maaratay wacyigelinta xagga waxbarashada iyo in la galo maaratay iskoolada iyo dadka inay iskoolka isqoraan iyo waxaas walaalayaal maanta isugu yimid anagoo joogno magaalada Garbadar waxa weyn walaalayaal horta mahad aadan niga naqaynaa oo niga soo mahadnaq baan niga siinayna halka sida aad noo soo dhaweyseen quruxda badan la ilaa xalay intaan fadhinay amba gubasho noogu dhigteen martigelinta amba aad imika noola fadhideen ee noo dhageysanaysiin aad baan niga mahadnaqaynaa horta walaalahayo waayo waa tolnimada aan isku lahayn waa tol intaaba inaan garanayn baa jirtay maanta aad baan niga mahadnaqaynaa annagu waxaan nahay ururka ka jira Djibouti oo Abdiraxmaan Ceeleeya oo dhalinyara oo adeeg walaal la yiraahdo oo isku xidhan ilaa qurba kolka waxa aan u ururnina wax kale maaha waa danta reerka sidii aan wax u wada qabsan lahayn afar shay baan ka dhiganay ajendaha iyaga inaan wax ka qabano waa midda ugu horeysa waa tacliinta waa midda labaad waa caafimaadka waa midda saddexaad waa abaabulka waa midda afraad sidii dhaqaale abuur loo sameyn lahaa dhulkeena aan wax uga qaban lahayn waayo dhulkeena macdab baa taala xaggaana waa la wala tago ku dabad joogiyo ku guda joogaba halkan baa laga wala tagay halkii laga tagayna ninba ma soo day halkii sidii loogu soo noqon lahaa afartaa shay baan ka dhiganaa ajande waxyaabahan mataqaanaa siyaasadahan iyo kabaaniyadan socdana wax aan maha anagu waan ka wada madax banaanahay mataqaanaa inaan dhex galgal lama rabo kolka waxa walaalahayo aan u soconay imika ahaan waa afartaa shay waa xaggii tacliinta oo maanta dhowr iskool baan doonaynaa inaan siino agabkii ay ku galayeen shandadihii iyo buugaantii oonu sidnaa laba waan soo marnay waa Karuure iyo Usuli meeshii loo dhan jiray xoog faras iyo Xuseenna hadii ilaahay xoog farasna inay imaka sii marno Xuseenna aan Britolia ku dambeeyo oo macallinkiina wangeyna oo naga horeeya bal isagana inaan alaabtiina aan siino wixii kale ee aan eegi karnana aan eegno dabadiina dhulbaxa jira ka shisheeyo jiri iyo gargaara galbeed iyo laanta marohdii iyo dhulka oo wali la marina bal inaan marnaan doonayna hadii ilaahay reerkii waxaan rabnaa halkan haduu joogiyo dabad haduu joogiyo Djibouti haduu joogaba bal sidaan iskugu xirmi lahayn wax wada qabsan kari lahayn ee walaaltinimo ay ku jirto ee tolnimo ay ku jirto ee intii de kulli in umba wax qabato dadka bal intii hormoodka ahayd ee mataqaanaa wax jiidi kari lahayn isku xirxirnaan doonayna hadii ilaahay oo isla socono kolka meeshan tagnaba waxaan rabnaa fadhiyadan oo kale inaan ka sameeyno kaga tagno rag dhowr qof oo isku xidhannahay oo lambaradooda qaadana lambarada yadana na siiyo inaguna iska soo dhaxushin xiriirkiina aan saa ku wada sameeyno hadii ilaahay yiraahdo waayo halkiinan waxyaabo badan baa yaalo macdaba oo Djibouti la keeno oo amba u baahan inaan mashruuc laga furo amba wada shaqayn ay timaado waqtiyada qaarkood halka kolka taajirtana waan ka sheekaysan doonaa sida aan u dhaqaajin doono insha Allah hadii ilaahay yiraahdo kolka waxa walaalahayow aan isku ognahay wax wala qabad iyo minnimo iyo tolnimo sida aad noo soo dhaweyseen aad baad ugu mahadsantiin kolka goordhow waan socon doonaa insha Allah laakiin inagana dabal wax aad iyo aadna waan inagu mahadnaqaynaa wafdigayagan ka soo ambabaxay maalinta galabnimadii khamiisyeed Djibouti ee halkan xalay ku soo dhaweyseen aad baan inagu mahadinaynaa waan mahad celinaa jazaakumullahu khayran wafdi beesha ka kooban oo samafalaha urur ka jira Djibouti baan nahay afar iyo toban xubnood baa ka koobanahay gudoomiye Muuse Ahmed Cusmaan ayaa gudoominaya anigu afhayeenkan u ahay marka galabnimadii khamiisyeed baan ka soo ababaxnay Djibouti jimcihii dhexdaas oo daad bariisla nagu helay laakiin ilaahay baa naga soo saaro waxaan ku soo maaragtay subaxii sabt jimceed ayaan Karuure wixii aan haynay ubadka u haynay aan halka ku gudoonsiinay
maamulihii iskuulka hoose dhexe ee Karure iyo wixii caaqil la joogay tuulada waan ka soo baxno jimcihii galabnimadiina usuli baan ubadkii halka waxaan u siinay shandaday iyo buugaan ahaa halka baan ku guddoonsiinay maamulihii iskuulka hoose dhexe ee usuli iyo maaragtay cayaantii iyo cuqaladii halka aan ugu niminay xalayna halkan baan ku soo hooyanay ujeedkaan soo baxnayna de xagga waxbarashada maanta culayska saarayna afarta dhinac ee ururka hawl galana gudoomiyaha inay taabtay waxaana ugu muhiimsan qaybta waxbarashada iyo si la isugu xirmi lahaa iyo wacyigelinta iyo deegaanadii aan cilaynay sidaan ku soo wareejiysan lahayn kulley mararkii hore soo baxaynay marka ka dambeeyaan soo baxno ayaan aad ugu faraxsanahay in wax la qabtay oo dadkii deegaanku soo jeesteen oo ficil galay baan arkaynaa aadna waan nagu hambalyeynayna waxyaabo badan oo xagga anagu qaban bay ka qabateen insha Allah ta'ala kuwii guuleystay Allah naga yeelo kuwii midana umuruga dhinac uga soo wareejiysan Allah naga yeelo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuwa ka yimid Djibouti iyo kuwa halka si joogay wa sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وأولاً ولو كل يوم وحولي وحوي الداء وحكون سيدي مدعين بنيه ولكن أورك هاي كي يمدي جيبوتي وكان جوجنو دقمة السيلة يلوك حيبا أما إلا قربات در يريد وحين مقرن السايس كله ضيعان وقانتي قلبك أي دوني خصاقر تري ما العلم بلي وانا سلامنا wixii kale annagu aan wadno ee dana sida iskoolada iyo caafimaadka iyo adab kulli anagu waxa maanta iyo maalmaha lagu dambeeyay biilaanta mashaariicda yaa xagga marka la yiraahdo taakuleed biilaanta oo tanaga aad loogu darin caafimaadka talawada ugu jiro waxbarashada talawada ugu jirta biyaas iyagu dibloyin lagu hayaan doonayna kulli in haddii wuxuu magacaabo kale laga soo caawiyo insha Allah ta'ala kulli xalay ilaa maanta waad ku dhex jirtiin magaalada haddii xagga motorka tahay haddii xagga ceel lagu tahay biyaha dibloyin lagu hayo dooxna waa doox dadkiisu badan yahay doox cas biyihiisu tabadan casay xarumo badan ayaa ku jira ciyaalka iyo dumarka sarifka oo aan la qabin magaalada kale kala soo marna lama qaban xanuunkaas waxaa loo aaday biyaha dooxa casas oo ka imanaya la buurma ولا البسجة منين دبعتي كل تصنيع وايسا وحي كلا باهية جرتا وحي كل دقيقة كلا دي وحيا ملا يعني انت تعودنا وادنا 60 تصل مرتين وكنا 60 ونعصو مرتين وكنا 60 وانا ورشقاننا وحي الضرب وشيهن ولا قبصة كرينا inta soo sheegteen caafimaadka iyo waxbarashada iyo mutaqaanaa wacyigelin in waxbarashada la qabsado in caafimaad lagu dadaalo in wax soo saar lagu dadaalo in lagu dadaalo dhaqaale inta badan waxa weeyaan diyaar baa u hayso waxaan ka tirsanahay kulli odayaasha Garbadar waxaan deganahay magaalada Garbadar magaalada degmo waxaa simaado tuulooyin badan waxaan ku dari kulli qaybka Cabdullaahi oo ka dhawaajiyay biyaha waa kow حتى بيجي هدي اللي هراء بيها صار استمكوا أكيانيان يجو إنجيل إنه قدر أوبا هنايد تاسي مشرتو هدي حتى بيها سيل هرانا وحي كان يسا تانجي ملا مقالته تانجيين أوكيدوين مقالته ملا تاس بان قدر لها من ذاك هلاي حاجة وحبرشادة عروري ميجا dadku markasta xoolo ka soo dhamaanayaan markasta waxa arkaysaa magaalada la soo degay oo ku soo biirayaan qoysas badan marka carruurtaana in taageero xooga waxbarashada aad xooga saartaan qodobka saddexaad baan ku darayo beeraha oo wax soo saarka dhaqaale aad ka dhawaajiseen inagaba soo saarkaas oo muhiim ah magaalada nolosha miyiga laga soo guuriyo magaalada laga soo guuriyo oo magaalada ku arkaysaan qoysas badan oo soo degay magaalada oo buurashoodii wata aqal Soomaaliga wata oo soo degay magaalada arkirtaan boqolaal qoys baa ku soo biiray magaalada 3 sano u dambeeyay
waxaan ku soo biray magaaladan aan joogno ilaa dhowr boqol oo qoys oo mataqaana miyiga ka soo barakacay xoolihina ka dhammaadeen saa darteed in aad waxbarashada iyo beeraha aad xoogga saartaan intaas baan ku daray dhammaan waad salaamantihiin waftida dhammaanteed magacayga inuu ku bilaabaya caaqil cawaale maxamed ibraahim magacayga ku bilaabaya caaqil maxamed cawaale maxamed ibraahim oo ka tirsan caaqiliinta beesha garbada dar waan idin mahad celinaynaa waftida ballaaran ee ka kooban beesha cabdiraxmaan sida maaragtaan aad noo soo dhow maaragtaan noo soo booqateen iyo waxqabadka fiican oo maaragtaan u fidiseen deeqda ballaaran ee u fidiseen degmada amba gobolka ay degan tahay beeshu waan iga mahad celinaynaa waan nagu soo dhaweynaynaa intaa ka da-da waxaan kaloon walaalaha ka soo hadlay wixii kolley baahi jirtay degmadan wixii caqabad anba baahi jirtay waxaan ka soo hadlay odayaashii ugu horreeyey waxaan kaloon ku dari lahaa kolley haddii la yidhaahdo baahida ilaahay inbaa horta biniaadanka baahidiisa gudi kara laakiin waxa inta koobanaya muhiimiyadda in laga soo qaato unbaa fiican kolley waxaan aniga aada iigu weynaa aan ku dari lahaa degmadan aragnay baahida waxbarasho kolkay noqoto waxaa jirtay laba baahiyadooda xagga waxbarashada ah waxbarashada maadiga iyo waxbarashada diiniga ah waxbarashada maadiga kolley meelo badan baa looga tamarucay oo lagu dadaalaa laakiin xagga waxbarashada diiniga waxay weyn oo la iska saaraa ma jiro ilaahay fadligiisa horta ilaahay waxa uu noo soo diray man wanaagsan oo macallimiin oo maaragtaan culimo oo nooga yimiday dalka Djibouti oo noogu tamarucay maaragtaan xoogooda iyo cilmigoodaba aad iyo aad noo soo qaaday xagga waxbarashada diinta u ka caamiyay kulley caqabado badan ay hortaagan yihiin haddii tahay xagga gunaha haddii xagga tahay maamul shaqaynta haddii ay tahay xagga maaragtaan masaajidka maaragtaan isaga laftigiisa dayactirkiisa oo maaragtaan disisaankiisa horena ay lahayd gabadh walaalinteena ka tirsan oo u dhalatay degmada garbada dar sayna cabdullaahi maxamuud oo iyadana in badan ilaahay ugu mahadnaqayna maaragtaan deeqda ay noo soo fidisay kulley intii waxqabadkeygii ah way fulisay kulley 3 jeer ilaa markaa iyo duufaani ku dhacday inaad indhiina soo aragteen baan u maleynayaa oo tagteen xalay oo baahidiisa soo aragteen baahida ugu weyn ee horta taala garbada dar waa baahidaas aan lahaa baahida masaajidka iyo waxbarashada diinta iyo taala kulley macmuur weeyaan masaajidku saddexda waqtiba waa buuxaa waqtina jaanis ma haysto kulley waxaan oran lahaa culimaduna waa irtoo labada aad aragteen oo kaliya ayaa dhiga in lagu soo kordhiyo macallimiin maaragtaan iyaga laftidooda iyagana laftidoodana wixii maaragtaan mishaarad aad gurmad ahli kartaan amba aad gurmad u firin karaysaan aad maaragtaan iyagana aad soo fidisaan horta baahideeda koobaad aan aniga aad iyo aad ugu weyn taas weeyaan waxa kale oo jira kulley jidku ninka wadanku iska caqabadaysan iyo waxa kale oo baahi aad u curan qabateen oo aad u adaga oo marag badan ay ka hadleen amba dadaalkayga ay nagu soo celceliyeen waxa jira nimadu kulley waxay jiraan Djibouti mid laba xaas kule iyo mid aan wali hadlayn xagga laakiin degan markastana dariiqii ay sii marayaan dariiqana caqabad badan oo ka soo gaadha marka ilaahay fadligiisa labada dariiqba in loo fudaydiyana iyada aan shadahay noogu jirtay ilaahay fadligiisa dariiqa soo ka waan ku guuleysanay oo ninkii meesha xukumayay iyo dadaal badan baan sameynay badan maalmo dhaweeytay ilaahay fadligiisa isaga waan ku guuleysanay waan fudaydinaynaa wala nagu yiri waxaan doonaynay dariiqa shishana كل ما دام دعاء زوجدان إن أتكلم هذا الشان ودقي حاجة شو كي جرانكي وما ركتان بس بورد دمر وبواد عيان لعاده يدخلوا بيستان وركوا جديستان ما يستان صدايم كباس بورد ودعسين بيشن كوبي طلاب ما هنا يصور لعانه يبادان حاجة بالغية وا كل غير من آدي آد بنقبحنا هنا حاجانا وإحنا قرا غرتان يعني واحد كأول كتري كرتانا هنا سيدا وجودك دك بدن أتباهي ده صارنا إنه وجود ظهران تكلم برا wax soo saarka qolada beeraleyda maxay ahayd garbada ruud degan baanahay kulli beeraha maxay ahayd dadka kale nin walba wixiisu deemeenu ku leeyahay kuwa maxay ahayd kinaalka labada beero labadiiba maxay ahayd beero waxaan leenahay imika beerani waxa ugu badan garbada iyo gorfala
labaduba maxay ahayd kiimaladii ka go'ayeen ijiino ma hayno ceelal ma hayno kulley tabarruc ayaguna dadkeeduna dad beeraley markii hore uma dhalin hadda laakiinse laga bilaabo inaan gacanta saarnaa wadnaa mar kasta waan ku sixaydin oo haddana waxqabadkeega waxbaa ka dhiman dee oo dhinaca dhaqaalaha ayaa wax kaga dhiman marka waxa weeyaan dee haddii walaalaha maxay ahayd qurbaha jooga iyo kuwa magaalada Jabuuti jooga kulley dadka Ciise Abdiraxmaan yaalla xagga umbaan eegnaa dee haddii wax nooga qaban karayaan hal mas'uuliyad leenahay walaalaha noo yimid maanta ee baahida dhibaatooyinka waxyaalaha walaaluhu ka dhex jira u soo kacatay dan gaar iyagoo lahayn yabna way salaamayeen inta kadib kulli baahi jirtay walaaluhu way soo dhameystireen wixii baahi jirtay way soo dhameystireen baahidana Ilaahay baa daboola waxa loo baahan yahay in kulli la dadaalo inaan la fadhino maalin waa inaan nagu la dadaalo idinku waxa weeyeen bankiisu kabeeyaa inaad idinku dadaalka abadaan maanta loo sii kordhisaan waa mid walaalaha ku garan maray waxa weeyaan inteera degmada un bay ka hadleen meesha maaha waxa jira dad tuulo oo reer baadi oo degan dhulka oo eeriyada ku baahsan dadkaas wax soo laamale wax dhaqaale amale ilaahay ma cid ugu ma jirto waxa kamida sidoo kale carri weyne sidoo kale jeerin sidoo kale buur cadabarkeedii la beedha dheerana iskoola loo furo kama hadida walaalahay marka waxa weeyaan dadkaasi dadkii la mid ahaa dadkaasi dad ilaa baridii dadkii la mid ahaa ee ummadaha nala yaala walaalhood waxay cudud saareen haduu dibad joogo ayuu haduu magaalo joogaba awood buuxday siiyeen iskoola loo dhis marka annaga dadka la mid ahaa waa baadiye waa dad xuulo jira waa dad indiyo dhiga lahayn waxaan walaalaha iyaga reer Jabuuti aan arintaasi duqeydo uga soo dul qaatay inuu soo celiyay dadka inay aan sidoo biyo dhaadheer biyo kuloo kale jeerino kale dhulka caynkaas in iskoola loo furo oo dhalinyarta yaryar ee xuulo jirkii halkaas wax barasho ka hesho ayaan doonaynaa qodobka arintu soo kala waa dhamaatay walaalaha qodobka haddii walaalaha kale ee meeshii la deganay beerta ما يقولون البدقان كلا قام بقولي يكادوا في عيه دقان كلا قام بالله أي ورابة دريرة كله ورقة كله أي دقنون كوجي يا مركا أجل سيمد دقني مركا أنا بدقنون كوجار بلا سكول بلا وحبة مركا